Qaaradda Afrika waxa ay ka kooban tahay 54 dal. Baaxad ahaan waxa ay ka mid tahay qaaradaha waaweyn ee caalamka. Hase ahaatee, way adag tahay in la helo hal waddan oo awood muuqata ku dhex leh waddamada caalamka. Balse marka dhexdeeda la joogo, waxaa jira dalal leh cudud lagu faani karo iyo kuwa ammaankooda u daba fadhiyo waddamo kale. Muuqaalkan ayaynu waxa aan kaga hadlaynaa 10 dal ee ugu awoodda badan qaaradda Afrika. Dalka koowaad ee ugu awoodda iyo tunka roon qaaradda Afrika ayaa noqda dalka Masar. Dalka Masar waa waddan leh xadaarad soo jireen ah oo qarniyo soo taxneed. Tirada dadka reer Masar ayaa lagu qiyaasaa 100 milyan oo ruux. Waana dalka saddexaad ee ugu dadka badan qaaradda Afrika. Masar waxa ay leedahay askar tiradeedu ay dhan tahay 930,000 oo askari. Waxaana diyaar ah isla markaana xeryaha ciidanka ku sugan 450,000 oo askari. Halka 480,000 oo askari ay kayd yihiin, kuwaasi oo howlgali kara wakhti walba oo loo baahdo. Miisaaniyadda difaaca ee dalka Masar ayaa si cagacagaynaysa 5 bilyan oo dollarka Mareykanka ah, taasi oo ku baxda dhanka zaadka, raadinta xogaha, soo iibinta hubka iyo dayactirkiisaba. Waxa uuna dalkani leeyahay wax ka badan 1,000 diyaaradood oo kala duwan, kuwaasi oo ay ka mid yihiin 250 diyaaradood oo ah kuwa dagaalka, 340 ka mid ah kuwa tababarada, 304 ka mid ahna helikobtaro ay yihiin. Iyo gaadiidka dagaalka dhinaca bariga ayaa la sheegaa in ay ka kooban yihiin 307,000 oo taangi, 11,000 oo gawaarida gaashaaman ah, iyo 2,000 oo madaafiicda goobta ah. Sidoo kale, Masar ayaa leh maraakiibta xambaara diyaaradaha, kuwaasi oo loogu magacdaray labadii madaxweyne ee soo maray waddanka Masar, Maxamed Anwar Saadaam iyo Jamaal Cabdinaasir. Dalka kaalinta labaad ku jira waddamada ugu awoodda badan qaaradda Afrika ayaa ah dalka Koonfur Afrika, balse dhanka horumarka la jaanqaaday dalalka tegay ee caalamka. Ciidanka Koonfur Afrika ayaa tiradooda lagu sheegay 81,000 oo askari, kuwaasi oo 66,000 oo ka mid ahi ay yihiin kuwa heegan ah, halka 15,000 ay yihiin kuwa kaydka ah. Diyaaradaha dagaalka ee Koonfur Afrika ayaa tiradooda lagu sheegay 221 diyaaradood. Waddanka saddexaad ee qaaradda Afrika ugu awoodda badan dhanka ciidanka ayaa la sheegay inuu yahay waddanka Aljeeriya. Ciidanka waddanka Aljeeriya ayaa tiradooda lagu sheegay 280,000 oo askari, kuwaasi oo 130,000 ay yihiin kuwa heegan ah, halka 150,000 ay yihiin kuwa kaydka ah oo diyaar ah mar kasta oo loo baahdo. Miisaaniyadda ciidanka Aljeeriya ayaa gaaraysa 13 bilyan oo dollarka Mareykanka ah, iyadoo dalkani uu leeyahay ciidan cir oo aad u qalabaysan, kuwaasi oo ku hubeysan 551 diyaaradood, kuwaasi oo ah nooca dagaalka, waxaana isugu jiraan noocyada sahanka, kuwa weerarka, qaybta tababarka lagu bixiyo. Sidoo kale, ciidanka lugta ayaa haysta 2,000 oo taangi ah, 7,000 oo gaadiidka gaashaaman ah, waxaana taasi sii dheer 396 madfac. Waddanka afaraad ee qaaradda Afrika ugu awoodda badan ayaa ah dalka Nigeria. Dalka Nigeria ayaa ah kan ugu dadka badan qaaradda Afrika. Hase ahaatee, dalkani ayaa noqon kuwa ugu ciidanka badan qaaradda Afrika, waxaana uu haystaa ciidan dhan 120,000 oo askari, taasoo ka yar tirada waddamada kale ee aan soo sheegnay. Miisaaniyadda difaaca Nigeria ayaa iyaduna ah 2 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. Ciidan yarida dalkani haysata ayaa lagu sheegaa inay ka mid tahay sababaha horseedka u ah xaaladda ammaan darro ee dalkaasi ku sugan yahay, iyadoo kooxo ay ka mid yihiin Boko Haram dalkaasi ay ka geystaan afduubyo iyo dilal qorshaysan. Waddanka shanaad ee qaaradda Afrika ugu awoodda badan waa dalka Morocco. Dalkani oo bilowgii sanadkan si weyn loogu bartay arrintii wiilkii ku dhacay ceelkii dheeraa ee Rayaan Khalid la oran jiray, waa dal ku caan ah dhanka dagaalka, waxa uuna haystaa in ka badan 450,000 oo askari, balse waa lagaga horreeyaa dhanka tababarada iyo saanada militari. Dalka lixaad ee qaaradda Afrika ugu awoodda badan ayaa noqday dalka Ethiopia. Dalkani oo kaalinta labaad kaga jira tirada waddanka ugu dadka badan qaaradda Afrika ayaa waxa uu leeyahay ciidan dhan 192,000 oo askari. Waddanka toddobaad ee ugu awoodda badan dhanka ciidanka qaaradda Afrika ayaa ah waddanka Angola. Angola oo ah dal tirada dadkiisu ay dhan yihiin 32 milyan oo ruux, isla markaana dhaca koonfurta qaaradda Afrika, ayaa ah kan toddobaad ee ugu awoodda badan qaaradda Afrika, isaga oo tirada ciidankooda lagu sheegay 110,000 oo askari, kuwaasi oo isugu jira noocyada kala duwan ee ciidamada. Waddanka sideedaad waa waddanka Liibiya. Waddanka sagaalaad ee qaaradda Afrika ugu awoodda badan ayaa ah dalka Suudaan. Dalka Suudaan ayaa ah dalka sagaalaad ee qaaradda Afrika ugu awoodda badan xagga ciidanka. Ugu dambeyntii, waddanka tobanaad ee qaaradda Afrika ugu awoodda badan dhanka ciidanka ayaa ah waddanka Tunisia. Ciidanka Tunisia ayaa kaalinta tobanaad kaga jira kuwa ugu awoodda badan qaaradda Afrika, waxaana tiradooda lagu sheegay in ay kor u dhaafayso
630,000 oo askari, kuwaasi oo isugu jira kuwa heegan ah iyo weliba qaar keydka sii fadhiya. Miisaaniyadda ciidanka Tunisia ku baxaysa ayaa ah $810 milyan oo doolarka Mareykanka ah.